بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنا ويدينتن what is a foreign trade or an international trade. Foreign trade waxaa sidoo kale loo yaqaanaa international trade. waxaan ku qeexi karnaa in alaab ama adeeg laga dhoofiyo waddan loona dhoofiyo waddan kale. haddaba foreign trade waxa ay ka kooban tahay imports iyo exports. Foreign trade waxa uu wadamada ka gacan siiyaa inay ka faa'iideystaan kheyraadkooda oo wixii dheeri ka noqda baahidooda ay u dhoofiyaan wadamo kale oo u baahan oo aanan haysan aqoontii lagu soo saari lahaa ama kheyraadkii lagu soo saari lahaa alaabahaas ama adeegyadaas. markana aan ka hadalno labada qaybood ee loo kala saaro foreign trade oo ah import iyo export. haddaan ku hormarno inaan ka hadalno qaybta koowaad ee ah imports, waa marka waddan uu alaab ama adeeg soo dhoofsado, midaasna waxa ay keenaysaa in waddanka ay lacag adag ka baxdo sida xaaladda waddankeena ka jirta oo kale. markana aan ka hadalno qaybta labaad oo ah exports, midaas oo liddi ku ah qaybtii hore ee ahayd imports. haddaba exports waxaan ku qeexi karnaa waa in alaab lagu soo saaray waddan loo dhoofiyo waddan kale. tusaale, waa in waddanka laga dhoofiyo muuskoo kale iyo xoolaha oo loo dhoofiyo kal wadamo kale sida khaliijka. marka ay wadamo u dhoofinayaan badeecadahooda iyo adeegyadooda wadamo shisheeya, waxa ay rabaan inay kaalin ka qaataan ganacsiga caalamiga ah, in alaabtooda ay u helaan suuq cusub, sidoo kale in dakhligooda sare ay u qaadaan iyo wixii la halmaala. inaad wax soo dhoofsatid ama aad dhoofisid waxa ay ka tirsan tahay qaababka lagu ogaado dhaqaalaha waddanka, waayo waxa ay noo suurtagelinaysaa inaan ogaano haddii uu waddanka ku jiro surplus ama deficit ama net exports waa imisa. markana aan isla aragno waa maxay labadan eray ee ah surplus iyo deficit. haddaan ku hormarno trade surplus, waa marka waddanka alaabaha iyo adeegyada uu u dhoofiyey ama uu ka gaday wadamada kale ay ka badan yihiin waxa ay soo dhoofsadeen. midaas oo loo akhrinayo waddankeenna waxaa soo galay lacag badan oo kaga timid wadamo shisheeye oo ay ka gadeen badeecooyin iyo adeegyo. waana midda ay wadamada door bidaan oo ay ku dadaalaan had iyo jeeraale sidii ay ku gaari lahaayeen trade surplus. markana aan isla aragno qaybta labaad ah trade deficit oo liddi ku ah trade surplus. waxaan ku qeexi karnaa waa marka alaabta aan soo dhoofsanno ay ka badan tahay alaabtii aan u suuq geynay wadamada kaleeto. marka ay middaa dhacdana waddanka waxaa ka baxda lacag adag, wadamadana ma jeclo in ay galaan trade deficit. ogow, ma ahan wax xun in wax lasoo dhoofsado, ee midda aanan la jeclayn ayaa ah in ku dhowaad wax waliba lasoo dhoofsado, waayo lacagtii aad ka qaaday waddanka ayaa dibadda u diraysaa. waxaa dhaqaalaha lagu xisaabtamaa in la gaaro isku filnaasho dhaqaale, lacagta badi inay waddanka dhexdiisa ku wareegto, oo haddii la heli karo isla waddanka gudihiisii shaqaalaysiin iyo wax soo saarkii lagu qabto. xog dheeraada oo ku saabsan GDP khaasatan net exports fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inuu markale haddii rabbi idmo.